هلو. ها برجع نيو مرة بدنا نكوعي عدسي إن صدر عيدنا كلي سأن فيديو كليب كان عندنا لكن ما أنت أنا كلي قلنا وحروا إن كل شيء مغل مرك حافظي لأن يرد ين صومري ماشي كلو صومال استاك هدهن كحوذي كله ومجرد هوس كتالي dad badan oo waxaan soo arkay madax i xanuunjinayo mi maqlay bareejo waagii hore waxaan maqli jiray aqli ha ila imaanin sheekadan waa idhibay waxaan ha igu dayin iga dhaaf hay anima igu dayay hadda saaxib waxaan soo maqlay wax xididdaha ilaa ay korka dhan i xanuunjiyo damiirka qalbiga iyo maskaxda iskaba dhaafo sheeka waxaa imaaday maadaama dalkii aan soo gubnay oo Soomaaliya ahay hadda waxaa imaaday luqadiyaaba naga ammaan helila dhalinyarada hadda soo baxayso aan isdhehayni macnaha ayaga waay dadkii berito wadankii wax u qaban lahaa wax u tari lahaa ayaga yaaba hadda kasta dhinaad sii dhammaystirooyin waxay keeneen biyihii oo Soomaaliya lagu dhaqaayay janaazadii iyo karfantii lagu duubi lahay anoo hadalku sii dheereen saaxiib waxaan soo maqlay maanta wax la yiraahdo af Soomaaliya ila imaanin kowde af Soomaaliga waa dhibaa laba dheh meeshan af Soomaali ma ka soconay xataa koo dhahay waa arkay koo kale waxaan arkay oo xabadkiisa iyo murqiisa intuu mahdi dhahay saaxiib aan wax kasta waa imaraa laakiin af Soomaali ma imarayna ii dhahay arkay marka niyo waxa waay hadda video clipkan waxaan weyn dad badan oo arki doonaan dadkii oo luqadiisa afkeena Soomaaliga ama afkeena hooyo mas'uul ka ahaa arrintan waxa ka qabtaan waxaan arkay wiil yar oo Canadian waa awowgiisa oo guriga uu ka soo cirsaday oo ka hadlayo luqadda af Soomaaliga muhiimadeeda iyo qiimaheeda annagii wiilashii oo Soomaaliya ku dhashay ama wadamada Carabta ku soo dhashay dalkiyo aysan arkin wax ay ka sheegi karin xumaan iyo samaan waxaan arkay yani in ay fududeysteen ay si basiid ah ay u ogaadeen la Soomaaliya wala afki Soomaali labadaba inaysan wax tareen dalkiyaan weynay luqadiina waa ku dareen marka barajata saaxiib arrintan ay jawaab laga rabaa ama duurka ku jir maqlow ama soo bax kulli clipkan waa arki doontaa jawaabteedana soo dir saaxiib ani adin hawshan waa isla bilownay waa isla wadaynaa insha Allah clipkan wuxuu noqon doonaa xanuun qaxooti 2 بين قوسين laba kooma dhexdood af Soomaali ha ila imaan marka arrintan ayada waxaan rabnaa dhalinyarada inay joojiyaan luqadda hooyo ama afka hooyo waa shay muhiim ah oo muqaddas ah aan loo dhawaan karin waa red line khat ahmar aan loo dhawaan karin fadlan waa iga codsi waxaan idinka baryayaa in aadan u dhawaanin aadan ka hadlin luqadda dalka waxyaabihii qarannimadii dad baa u geeriyooday dad baa habeen dhaxa u soo dhafray si ay u suubiyaan luqad dalkii Soomaaliya iyo dadkii u qaas ah hadda tiyaysan noqon marka faraka ciyaar iyo kaftan iyo qiimo la'aan aad iyo aad u mahadsantihiin clipkan saan hore idinku sheegay wuxuu noqonayaa xanuun qaxooti part 2 ama number 2 in between two commas af Soomaali ha ila imaan ama af Soomaaliga waa idhiba waxaa ka sii daran ninkii odayga ahaa oo lafta lahaa mushunguli baa Allah magaciisa ma aqaan iyo awiino waa magaciisa wuxuu yiri aan wax kasta waa imara ila imo waa ka qaadaa laakiin af Soomaali ha ila imaan anigina waxaan rabaa inaan wax fahansiyo afkaan kula hadlaa marka asiga English ma yaqaan Arabi ma yaqaan خياري إيش يا قبل نكاسو كلا أفكار أنا ما حروا إنام فهنسيو كلا دعي أسيق غلطو يفهم وحو يفهم إن دعي ربو إن معناها سقلت واحد مرسين ربو صاحب وحبول بو إمارة في Soomaaliya هاي الإيمان نوير حجودا سو كلا سيلو بحكرة وأنا مهسنتين حبيبون أكسن